إن أنت قرنا يو وين ردي وديسه إن أنت أنا والله صعتها إنك ما حبلها تبدي قصة بريق معها أول أروى هو يدي أو ولا شيء وهو يدي ذلبات marka anu hablaan la dhashay qiimahoogana ana garanaya dhamaantood rag Soomaaliyeed waxay u badan yihiin qaar intiinaasba tina halka fadhiya balan gaabis waxa turjumaysan aqliga ragga Soomaaliyeed ay u badan yihiin dhamaantiina diin maad baran qaadna wada doodaysayno wada muqayliin baatino balwad baad wada leedin haddaba ragga iyo dumarka diin maad baran markaan leeyahay beena ma aho doodiinan baa cadeynaysa bal adiga maxaa ku geeyay sababtu maxay tahay aqoon cilmi maad baran jaamacad maad baran darbatiif baad ahayd saaqid baad ahayd damiin baad ahayd sababta ku kilifaysa inaad miijaariyo maxay iyo balwad iyo jiidina joogtidiyo waa sababtaas marka hablaha Soomaaliyeed maanta rikoor habalka uu haysanay halkaad ku raaxaysan waxba martay anigoo yar bal halkaad ku raaxaysan markaan ku soconaa waa raaxan u soconaay waxa tiri $100 baan ku shaqeeyaaye lacag bay kaaga baahantay Morocco abti dalaalkaas waxa iga muuqda waxa weeye wala nin wax bartay baan ahay shaqaysta laakiin uu kulligaad jiftaa waa laga samray maxaa dagaalka lagu gelinaya waa laga samray haddii midkan saaqada loo dhiibo adigu wax tar su'aashan haga jawaabaya warinta afar iga dhashay oo afarta qodob iga dhashay oo afarta aan xambaaro aan koriyay baan anigoo dumaro nisaatan xiniyahayga meherad furtay ku korinay awlaadaadii gudayso dooda hayd ee gurigeyga baa dad imanayaan gabadha family-geeda imanayaan ee reerahooda imanayaan alaabtii guriga dhigtaale alaabtan soo tabcaday baa la bixinayaa raali kama yihiin waxyaabahaas dhan aad lahayd weynaan aniga amar qaadato waxyaabahaas soo isqabsiga ka imanaya baa tiri marka adigoo doodaad ku soo noqonaya anigu laba qodob baan doodayda aan ku salaynaya horta markii ugu horeysa dumarkeeni lacag wax la dhaha hor carartay gabigoodiiba lacagay wax kaleba ka sheekayn maayaanba midda kale inay dumarkii biyaha wejiga ka soo dhamaadeen midda ku cadeynaysa ama sababtan ku leeyahay dumarkii rag bay noqdeen berigii hore dumarku dhaqan bay lahaan jireen ninku markuu gabadha ka hor yimaado marada wejiga sal saari jirtay dadna sii jeesan jirtay wejigooda lama arkin jirin dumarka hadda Soomaad garan shaahana may cabi jirin hadda Soomaad garan labadaan ma sameyn jirin imika waa kuwa maanta kursiga noo soo fadhiyana la murmay saan loo seegay anaga saan noogu taaran wad dhaqankii ay lahaan jireen ba ka tageen waxa weeye waa kuwa meeradii rag la soo fadhiisanay shaahi cabaya waa dhaqamo ay lahaan jireen ba la soo baxeen hadda Soomaad garan dumarkiina waxa xol carartay bahal dhaho lacag warwaagu nin wax kale ku doodoodu maaha ninkii baa lacag siin waayay hadeerna hadii aad aragto imika burcan joognaa inta guriga halka yaala waxa weeye rag baa nin raga soo dhinta qaar baa dibada ugu maqan suuliyo ugu soo shaqeeya qaar baa waxa weeye qaad ka soo shaqeeya qaar baa kuuli ugu soo shaqeeya qaar baa waxa weeye jaarnimo ugu soo shaqeeya qaar baa wasaadnimo ugu soo shaqeeya qaar baa darawalnimo ugu soo shaqeeya walba iyo sheekh dhakadiisa ugu mara sheekh aad aragtay buraas oo kale leexsan habeen walba guura ku mara 24 saacadood dumarkan ay ku adduunayeen kibis bay dimaana waa gabadh islaan ninkeedii dhintay dina caruurtii agoon tahayd aanay u weynaan u gaarin laba inta islaamada suuqa ku soo arkaan boonay suuqan kibis ku dibnaa annaga maalin walba gaariga nala dhacaya inshaara faraha nagoynaya qoryaha nagu qarxayo askari baan u noojiidaan u joognaa anagu ma loobayaan baana waxa ilaahay ii siiyay ninka raggaad ka siiyay ku iimaan qaba haddana Soomaaliya haddana waxaan u baahnaa gabadh iga dhasha guursada iga dambaysa imaqasha haddaan gabadha Soomaaliyeed ila dhalatay inta ka waayo midan ka helayaan doonanaya marka hore ku samaysaase adigu qof laga helay ma tahayde oo wixii adigu fuliyo sidii la doonayay laga helay soo qof qolinay qarax kuuli baanahay kuriga dantaa jirtaa inta kuri meesha doonta barto balqaad ku soo cunta qaad baad siisata anigoo gaajaneed guriga igu timaada maanta hore intaad maqnayd ama kuuli ha ku jira wixii doonayay ha ku jiro tan aad adigu leedahay maqnaan aniga middan iigu jirto ma baad maqnayn baan ka taaka aydi tan aad leedahay dumarkii laga dhigtaa kabisidubaya kuwii 20 jirka ahaa ee caafimaadka qabay suuqa ku jiray baa caruuroodii saaxiib kala wadan fadhiya mana dhimana weynooyina waa xaadir shaarad leesha wal cabay torta waa cunto wabiya ku riyo kala anna baahida kugu xiran baa anna igu xiran waa cunto de wax cunto ee maaha dumar rag iyo dumar baa kala tii rag iyo dumar kana wadar ma jahiliga lama joogo lama kuna far laatan bil casri la joogo adduunka hudala wad aragtay de hudalada rag iyo dumar isku dhex jiraan ma jiraan wallahi rag iyo dumar ka dhex fadhiistaan dumar fada qol bay leeyihiin
daraguna qol bay yihiin dadaan qolkayga inta ka soo rooskayga ku dalbaday iyo maxay tara koobka yeeshaa yaa iga celinay maxay qofka iga celinay muxuu yahay gurigaaga ha ilaana soo shaqeyn nina soo shaqeyn gurigaaga ma ninka iyo guriga ninka guriga qaadka cunaa ku doodaysaan ma been baan intaas marqaati ka yihiin ragga guryahooda ugu wanaagsan yihiin ma waa ko guryaha waa ko ku saamay ka badan ugu dhig karka ugu wada daran weeyaan qaadka cunaa waa majority weeyaan waa majority waxaan ku difaacayaa nimanka qaadka cunaa horta waa niman lacag baa soo gasha waana nimanka ugu muhiimsan ugu lacagta badan leh hal mid bay nimanka ku colaadiyaan maaha lacag la'aan waxa weeye qaad ma iibiyaa ninkuu soo saamaleelaya deedna waxaa dhacda xilliyada dambe inuu isagoo de maanta qaad ka soo shaqeynayay yimaado ama 12 habeenimo ama 1 habeenimo iyada hurda dabeedna uu habeenkaa hurdadii ka dhaco intaas cuqdad madaxba karaya khalad ma tahay gabadha la seexatay ama gurigaaga laga seexay saacadii la dacaysan jiray ilaahay soo dhawaanaya la baryayay inaad qaad fadhido aad wax maala yacni ku maqnaato ibaadiyadiina aanad ku maqnaanin ma khalad ma masaxta taas shaqa maaha kama shaqeynaya isagu caawo dhan buu fadhiyaya wuxuu doono cabaya daroogas intuu doono maxay talo sidoo doono ka yeelaya rag majority tuu hamlayso wax idolaale doonaan bay cunaya wuu soo saamaleeyay anigoo saxbay hurday xaq baan ku leeyahay daan ninka iga caawan isu soo diyaariyay waa sugaya dawono baahana sidii ku baahan ugu baahana wuu iska maqnaaday caawo dhan masiko halkaasaan jacfartay fadhiyay saakida ma yimi da qof dumarana waan iska looda waan iska gamay taas qalad ma tahay su'aal baan weydiinaya adiga hooyada way iga xushimo jirtay markan ka hor imaado afka marada saa jirtay dheegaasi iga beeri jirtay wajigeedana ma aanan jirin maxay tahay sababta inta adigu soo fursaday ila doodaysa walaal waqtigiisa la oranay waa laga soo gudbay hadda la jooga caalamka eeg wixii runa wala soo sheegay gabadh haday gabar tahay horta eeg laga soo gudbay 4 duris asriya la jooga marka jaayilay cilmi miya la jooga magana tahay hadaba raal runa ku sheegay anigu haddaan ahay gabadh de wax ma diidi kardeen iska kaaciliyo waan iska kaacilinay qof adoo kala abaana 9 bilood ku dhata ku dhata xurmadii iyo sharaftii aan kala haddaan ka waayo de waan iska kaacilinaya xaq ugu dhacay qasab de ma hayna indhaha hoos rugo maxaad iska kicin maxay iska kicinaysaa de qof sabab de wada dhibasa albaabka ku soo qaracta kowda baa toosinaysa wada lu goynaysa maxay talay adoo marka jacayl iyo baan diga shaqasay stress aad igu riday noloshaydii oo dhan baad cidhuri gelisay gabigeyga aniga yahay inta aan nafteeda ka dood karamaya yaa diidayna nafteeda ka dood sanad dambe doonay waxyaabo badan baa laga hadlay dumarkuna waxay ka hadleen waxyaabaha rag u geysanay damage-ka raguna waxay ka hadleen waxyaabaha dumarku u geysanay wax gurigooda baan dhaqanayn waxaas sababta lagu arkay dumarkii Morocco adigu kuntii gabagabadii nin waxaan soo maray ma tahay oo waxaan wax ka garanayo oo ها أنا ما صامر كوي نيو دمر كنا لعب برهبان يمكن هذا مسلحانيان مرهبنا أنا مروكان وعادينا سويدي ما كنا جورسدو واحد مودة إني حافظ أسر شقة تكتي وإن لعكان ماشي كلا لعب حافظ إن نقول أجد نيو مو إيميل يجي أنا وما نقارن قال لي العق بدون يسال العق قولي يا جماعه في وريا يا شباب شباب كل شيء هيرني أنا وحدي حتى ثمرت الآن وخطوط saddexdiinaasna halkaa fadhiya maadaama saddexdina aad isku soo bahaysateen waxaad ka turjumaysaa raggii Soomaaliyeed majority ahaa saddexdiinaasna anuu intan yare waxaan soo raacay intan yare raggan Soomaaliyeed ee aqliga leh saliimka dhammaantood ragga Soomaaliyeed waxay u badan yihiin qaar intiinaasba tina halkaa fadhiya balan gaabis waxaad turjumaysaan aqliga ragga Soomaaliyeed ay u badan yihiin dhammaantiina diin maad baran qaadna waad u doodayseen oo wada muqayliin baatiino balwad baad wada leediin haddaba ragga iyo dumarka diin maad baran markaa niileeyay beena maaho doodiinan baa cadaynaysa ragga iyo dumarka markay iskuursadaan ilaahay wuxuu yiri raggu waa inay dumarku waa inay gurigooga joogaan ragguna waa inay shaqo tagaan gabadh Soomaaliyeed baad leediin maxay u shaqaynaysaa bal adiga maxaa ku geeyay sababtu maxay tahay aqoon cilmi maad baran jaamacad maad baran dirbajiif baad ahayd saaqid baad ahayd damiin baad ahayd sababta kuu kalifaysa inaad miijaariyo maxay iyo balwad iyo jiidinaad joogtidiyo waa sababtaas marka hablaha Soomaaliyeed ahmad maanta wadii la rikoorha baalka uu haysanay waxaan ku sheegayaa dumar waxa tiri waxaan loogu talagalay koroma waxaan loogu talagalay waxa loogu talagalay waa tiri inay guryaha joogaan diinta sheegaysa dumarku waa wasiiro hadda xilligan joogno waa xildhibaano waa agaasimayaan sababtu ma taqaana idinka wax barin waay dumarka kuwaas ma dumar ma ahamiya mise dumarka laba kuwaas iyo dumarka aad u doodaysaa maxay ku kala duwan yihiin haddaba waqtigan la joogo dumarka wax barta
raggu dhammaantood waa kuwan qolayada fadhiya ee qaadka iyo nolosha ka dhacay laakiin dumarka waa adiga iminka ragga halkaa fadhiya dumarka halkaa fadhiya bal isku eeg markii lagu leeyahay ragga intoodii foosha xumeed baa tegta Morocco intoodii quruxda badan hadee waxa kugu filan saddexda nin halkaa fadhiya anigoo halkaa fadhiya banka ka soo jeeda sukaayo eega hawtaan raaxaysanaya yaraan baan wax ku bartay waan soo dadaalay tacab bacda raaxa la yiri marka hore waan tabcay imkana waan raaxaysanaya dhalaalkaas waxa iga muuqdaa waxa weeye walaa nin wax bartay baan ahay shaqaysta laakiin uu kulligaad jiftaa waa lagaa samray maxaa dagaalka lagu gelinaya waa lagaa samray walaal sababta tii u tagaysaa waxa weeye reerkaagii baa abtikaa quustay haddii aad tahay aad tidhi dumarku digrii bay wadaysteen oo aad digrii caafimaad soo qaadatay dumarka waxaa loo ogolyahay haddii wadan diin lagaga dhaqmayo ay yihiin inay diinta kaliya bartaan sida maxadada iyo shareecada adigu marka aad soo baranaysay nursing soo ugumaad talagelin anigoo aanan guriga kaa saaran inaad ka baxdo lamada 2024 baa la marayaa yaro lama dhameeyo sideedka la mari maayo waxaan macluumaad baan anigu adiguna fool xun tahay baan xal ku sameeyay oo dawo ku iibiyay oo ku cadeeyay aniguna aan fool xumaad taasina waa qasalayda sameeyda waa damayda orda mayda hamayda haysa la fadhiya aniga waa qoyso su'aal baan ku weydiiyay awdhan waxaad ku doodaysaa warshad baan ahay iyaal baa soo saara kaliya ma soo saar karaysaa hal ay tan soo galisaan aytanka waa ka saddex jeer xaqwada waa aniga yaro kaliya ma dhali karaysaa horta taariikhday ku jirtaa gabadh kaligeed dhashay way jirtaa waxbaan soo saaray gabadh kaliya halkaad ku raaxaysa waxbaa martay anigoo yar bal halkaad ku raaxaysa Moroccan ku soconaa waa raaxan u soconaaye waxaa tiri $100 baan ku shaqeeyaaye lacag bay kaaga baahan tahay Morocco abti way inba miilu yaali arigu dhaqda galabtii dambe waxa soo horaday laba lixaad lax neeyla ka xidhan tahay iyo sameynay dhashay dabeedna si walba soo daba orday dabeedna ninkiiba intuu saa eegay laxdii nin laxda gartay oo neesheedii baa guriga ku xidhan sameynta la socdana gartay iyada dhashay laakiin waxa soo daba dhigay soo badhiidho maaha inantan garanayo way nala doodaysaa inantan waa la socotaa ninkan waxa hablaha daba dhigay soo badhiidho maaha isaga sababtay daba dhigtay baa ah walaal waa hooyaday oo waa walaashay eeg waa hooyadayda labaad marka anuu hablaan la dhashay qiimahoogana anaa garanaya waa kuwa walaalahay ablihii Soomaaliyeed idan kale sumar ha noqon sumarkii labada laxaad soo daba orday ha noqon waa aqli badan walaalhaaye waa dood rag iyo dumar ka dhaxaysa aqliga ku siiyay hooyadaayo walaashaa ka soo horjeedsa horta waa maxay doodan waa dood rag iyo dumar ka dhaxaysa rag iyo dumar oo ma dhaxaysa laba fikir bay u dhaxaysaa walaal laba fikir bay u dhaxaysaa dhegeyso أنا ودي أبحي ومري أيام أنا ومري يا ولا هل سؤال بأنه يدي وحلا هاي يا بهبت كسر كذا ولا لا يدقن كيس ومالي ما يكلم طالب قبل أتاني بإلا أنا إنك مسهر كذا البارس بان سمع سنة البان شب سنة يا ناقع على عدي مرافع يا على عدي سواء قرتين إن هاي لا حبيك هذا باهنت هاي حبيت فين داود يال كنت كقول بتشرنا إن نمع درج عود حقود ديسيان نقوى فلكي ونوع عينو أصفر حما كهاي فر حما هذا كم راعين مياه فلكي كهاي شكلها ما كهاي نعوبة لا بد في بحوي فكر الصوماليين أفكي هو صنبا يكمل كسر لا يكمل واي حسوا كقولي وحكوا قبلنا يرد دورنا وصانع عشان ترقي labadii tamrood dhinacna kama shaqeynaya mid kale imka dib kale ah hadaba keenana jirta rag iyo waxay koonayaan midna berg hore dumarku xidhan ninka hebel muxuu ka shaqeeyaa ama muxuu qabtaa rag hadda waxay koonayaan say yaci adiga jeebkaaga u shishaan eegta mardaradii oo wadaradii ku dhacday ay shaqeysan kar waayeen danahoodii garan waayeen bay hadda mar heer adiga ku dhanaado gabadha yacni inay ku shishaan ku dhahaan adiga horta maxaad ka shaqeysaa marka horta anigu waxyaabaha aan la yaabay igu la yaab ka badnaa ayaa taasam garanaysa ma jir gabadhu si kasta u shaqeysi wax kasta ka shaqeyso xoolaha ninul ma noo shaqeysanayn miyana awlaad shaqeysan ma gurina sabab ninka awlaad kala duwan qof adigu dhashay iyo qof ajaanib bilaadan ay soo way kala duwan yihiin oo kale waa beertaadii oo qof dhaxlaya adaa dhalay waa ilmahaagii laakiin nin doonaya inuu socdo isna aad u shaqeyso adduunka meel ka dhicmaysa dadka Marooka ku doolaysaana adar dad baa dhalay inta laga doonaya Soomaaliyeed baa laga doonaya su'aal baan ku weydiinaya axsan su'aal baan ku weydiinaya rag badan waxay sheegeen ragii Marooka aaday in ragii Marooka xagga aaday la jabsaday oo lacag badan oo sidii hore ay moodayeen iyo si kale ay ka noqotay si ay moodayeen si kale sax oo lacag badan laga qaaday oo kumanaan kun oo dollar laga qaaday
oo 2000 iyo wixii ay been noqotay Sax. marka haddii arrinkaas fashilmo oo ay dumarka Soomaaliyeed la qiimo noqdaan 50,000 iyo 60,000 ay tagto ha xala ota waxa Soomaalidu tiraahdaa waxa Soomaalidu tiraahdaa qandhuurtii gacal arkaysa ayaa handhaadhirta haddii ragga Soomaaliyeed ay heli lahaayeen dumar oo guur jaban oo wadankooda jira oo waxay caddayn u tahay qof kastaba uu arkayo inay ragga Soomaaliyeed ay jari waayeen dumarka Soomaalida taasina qof kastoo bini aadan aniguba hooyaday gabadh kale caddaan ah dee kama xagay ka soo jeeda ma dhaafseen laakiinse dumarka Soomaalidu waxay noqdeen wax aan qof iiba oo meel yaala oo u baahan inay iibsato taa waxa ku cadaynaysa gabadh Soomaaliyeed meel ahayn oo wax kasta iyo qiimo kasta ku kacsan ku guursanayaan qiimo kasta ku sugay ma ka helayaan qofkii weynaan horta waxbaan iibsanayso ma qofkii waan iibsaday qofkii weynaan shuruudihii anaa iibkalaad ku dagtaysa qofka maalaaba hadduu qofku jacayl waxay gelin waayo oo aan jacaylkii ay ugu qaadan weydo oo aan lacag ku iibsado dee waan iibsaday taas waa waadax haddii jacaylku waxay jari waayo oo aan waxa weeye lacagteeda wax ku jartay dee maaha soo burjima adiga laakiin sal su'aal baan weydiinaya haye su-aasha waxaan ku weydiinaya waxa weeye haddiiba aanu anagu Morocco tagnay oo aanu Morocco aadin hablii Morocco oo aad aragtay يعني ما أنت استسعار واي قف بالآدم كهدردي قف دكان فرطة ودكان كيس حبل جاي يسوي دكان كل حاجة الله ناف وأغاني حاجة خلدي دكان كيس هذا ما يصير وحبا خلطن ومر خلط كافر ما فيرس horta laba waan kaga jawaab dhigeyso horta marka hore waxaad ku dadegaysaa gabadh alaab waan iibsaday waan iibsaday gabadh marka hore alaab ma hade alaabta la iibsado qof awo kala bini aadana nolol iyo system ina samaysataan wadorta ku socotaan waxaad iibsaday ma jireen tas lagu dhalaya hadii lagu dhalo sagaa bilaad baa xoosh lagu siiyay waa la korni la soo helaya adigu nin baa tahay masuuliyadda ku saaran nin baa tahay anna nisana gabadh baana inuu qofku inuu ninku gabadh iibsado horta marka hore gabadh ma alaab maxaa la iibsadaa marka hore alaabta la iibsadaa gabadh ma dahab la gabadh marka dahab la dadaan qal iibsadaa wala la tagay marka 500 gram ka dhigtay ee aad ila maamusho inta reerkiina siinay waxaad ugu tala gashay Soomaa waxa weeye jawaabtu inta inaan hay gumilay adigu nin baa ilaahay ka dhigay nin ragaatay sadooda iyo sadonku alaabta yar sooriyada ay qaadanayaan waxa ku xisaabiyay xisaabta waxaan leeyahay rag dumarku anu waxaan leeyahay shooda raggiina ka dambeeya idinka raggiina ku kalifiinay Morocco aadan iyo bahalka gaaraan anagu waanu shaqaysanaa waxba idinkuma baahin waha Morocco aadan xilkiisa ka gabay waadiga كاود سلعة وعديك كديم في قروح بدنا شيء ممكن نوصل قلبنا هيدا وهذا ما تهارا هيدا وعديك